dhigay nin la yiraahdo maxamed cabdi umal ninkaas oo aflagaado aad u xeel dheer ama ihaano ama taxqiir si kastoo loo dhigaba ama tacyiib iyo ceebeen iyo naqsi ugu geystay muxaadarada ayada ah rasuulkeena udgoona calayhi salaatu wasalaam oo ay kamid tahay sidaa daawan doontaan ereyadiisa nabiga maalin u soo galay sidii caadadiisa ahayd maalin buu xaraam u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam thumma jalasat tafli ra'sahu salawatu rabbi wasallam alayhi way fadhiisatay nabiguna wuu ag fadhiistay waxay bilowday inay nabiga timihiisa salawatu rabbi wasallam alayhi ay ka gurto injirta iyo qashinka iyo wixii ku jiray ay ka saarto ayay bilowday inuu ku tilmaamay rasuulku inuu lahaa injir oo dumar gabadh uu sheegay oo leeyahay xaraam bint milhan ay injirta ka guri jirtay oo uu ku daray inay ka guri jirtay cayayaanka kale oo injirta aan ahayn oo madaxa gala oo qofka Soomaaliya yaqaan lagu tilmaami karo bahalka qandhicilka la yiraahdo oo ay kamid ahayd in ay ka nadiifin jirtay wasakhda oo ay kamid tahay in ay ka guri jirtay qashinka وأفر أفلقاده أو مد ولبه أي محوها جراحته أي لا هي دبعتها أي لا هي مركزها واحد باللوضي إن النبي صلى الله عليه وسلم تمها وجهها جاتسو قشنك إيو عيانك تمها جلا أيا واحد رمينا كتبتك إن شاء الله تعالى لكن أنت عن وياك هذا الكيس إن نوجد بن أيا واحد رمينا تلمان إن شاء الله لو كنت المامي رسولك عليه الصلاة والسلام من كاس in uu ahaa injir le mar haddii qofka injir laga guray oo injir lagu arkay injir la oran karaa inuu ku tilmaamay inuu lahaa qandhicilka bahalka la yiraahdo waa sida uu dhigay cayayaanka kana madaxa gala inuu lahaa wasakh inuu lahaa qashin inta ka baxsan oo intooda markay timaha galaan in qandhicilka iyo injirta iyo wasakhdu waxa kale lagu tilmaami karo sida cawska iyo caleenta daawata iyo saliid iyo burka qofka madaxa ka gala runtii waxaad moodaa arinta ayada afarta marka la sugeeyo qof waalan oo miyir qabin oo u sawirtay rasuulka ilaahay ama uu sawirtay meesha uu joogay Nairobi la dad joogi jiray qaraabib la oran jiray oo qashinka ku noola ruux waalan bay injirta iyo qandhicilka iyo wasakhda iyo qashinku caleenta iyo amxaa cawska isugu tagi karaan ayaa waxaan rabnaa inaan horta bal ishaarno rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tilmaantiisu ma sidaas ay ahayd oo diintu ku sheegtay mise si ka duwan bay ahayd waxaan rabnaa rasuulku inaan horta tilmaano inuu ahaa alayhi salaatu wa salaam nuur macnawi iyo ku daata labadaba hadana inaan tilmaano alayhi salaatu wa salaam rasuulkeena diidkiisu inuu barfoonka iyo cadirka wanaagsan laga sameyn jiray oo sanahayn didkiisu mid intuu qurmo injir iyo qandhicil ay ka soo dhashaan meesha ayada hadana waxaan rabnaa inaan ishaarno insha Allah ta'ala in diinteenu ay tahay diin nadaafo wa tahara rasuulkeena waxa rasuul nadaafo wa tahara rasuul nadaafad iyo taharo rasuulkuna waxa qaa'idka ummadda oo tahay xaq ama waajib in lagu dayo tilmaantii aan ku aragno marka ninkaas wuxuu noogu tilmaamay rasuulku qof injir laho qandhicil laho wasakh laho qashin thumma jalasat tafli ra'sahu salawatu rabbi wasallam alayhi way fadhiisatay nabiguna wuu ag fadhiistay waxay bilowday inay nabiga timihiisa salawatu rabbi wasallam alayhi ay ka gurto injirta iyo qashinka iyo wixii ku jiray ay ka saarto ayay bilowday marka kadib waxaan rabnaa xadiiska uu ka been sheegay ninka asaga ee sida xun qaladka u turjumay in aan u tagno lafdigiisa oo aan horta i'raab ahaan iyo sarfi ahaan aan ka hadalo luq ahaan aan uga hadalo culimada